بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمانتي وادي السلامي inta kasoo qayb gashay barnaamijkan iyo inta kasoo shaqaysayba buuggan aan caawa Hargeysa xarunta dhaqanka Hargeysa ku daahfurayno oo ciwaankiisu yahay ama magaciisu yahay jidka loo soo maray falsafada runta ah horena uu qoray oo laba buug oo afruusha ka soo minguuriyay Jaale Maxamuud Cabdi Dhunkaal Allah ha naxariisto. waxa aan ku faraxsanahay inaan dadweynaha inta lagu kasoo qayb galay waxa kale oo aan kusoo dhaweynayaa cid kasta oo maxaan ku dhahdaa inagu soo biiri doonta ama hawada ay nagala socota. aan ku horeeyo mahadnaqyada oo degdega waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa xarunta daahfurkani martigelisay oo xarunta dhaqanka Hargeysa iyo hoggaankeeda shaqaalaheega iyo tiimka oo dhan si gaar ah waxaan u xuseeyaa jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa iyo mashaariicda kale ee la midka ah oo isagu lahaa initiative-ka ama tallaabada aynu maanta isugu nimidnay iyo fikradeeda iyo dhiirigelinteedaba tiimkiisa iyo anigaba nagu dhiirigeliyeen si fiican barnaamijkan aan u soo agaasino. jaamac barnaamijkan maaha ee hawlaha kale ee xarunta wado iyo waxaan wuxuu ku mahadsan yahay iyo platform-ka uu inoo abuuray ee caawa isugu nimidnay. qolada labaad iga mudata mahadnaq waxa weeye shirkadda Hilbras oo Shukri iyo tiimkeedu ay nala joogeen Cabdiladiifina soo galay ma hubo dhammaantood waan u mahad celinayaa. haddaad maqloodaana codkeeda inta lacaya laakiin baalkayga daba dhacaya oo dhagiigaga soo noqonaya marka aan ku soconno shirkadda Hilbras tiimkeeda iyo tifaftirayaasha ka shaqeeya iyo farsamayaqaanka ka shaqeeya iyo artistka jooga dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa shaqada ay ka geysteen buuggan oo aad u fara badnayd. si gooniya waxaan uga mahadnaqayaa agaasimaha shirkadda Cabdiladiif Ismaaciil Cali oo maxaan ku rahdaa fikradda buuggan soo saarideeda dadaal badan geliyay. waxaa kale oo mahadnaq mudan oo aanan iloobi karin sidoo kale aan hoosteena ka xariiqay tahay dadweynaha buugga ku soo dhaweeyay sidoo mataqaana farxadda kaliya laabta leh oo inta uu gaadhay aan ka warhayo meelo badan oo ka dhacay fariimaha ka soo noqonaya maxaan ku rahdaa ammaanta loo jeediyey buugga iyo soo dhaweynta diiran ee la soo dhaweeyeyba waan mahad celin inaan ka bixiyo ayaa waajibta. haddii aan u gudagulo markaa bandhigan oo ah kii labaad ee buuggana ku daahfurnay magaalada Hargeysana ah kii koowaad isagoo kiisii koowaad aan kusoo daahfurnay magaalada Boorama bandhigii toddobaadadii na soo dhaafay ka qabsoomay waxaan kusoo koobi doonaa si aan waqtigeedii ka cunin 5 qodob oo kala duwan. qodobka koowaad waxaan ka odhan doonaa qisada buugga dib ugu dhashay. qodobka labaadna waxaan ka odhan doonaa qoraaga buugga. qodobka saddexaadna waxaan ka odhan doonaa buuggu waxa uu ka kooban yahay. qodobka afraadna waxaan ka odhan doonaa shaqada aynu buugga ka qabannay. qodobka ugu dambeeyana waxaynu ka odhan doonaa maxaa nagu kalifayna buugga shaqadaasi aan ka qabanno. muddo laga joogay imika 2 sano ama sanad iyo badhaan idhaahdo qiyaasta taariikhda si fiican uma hayo buuggani oo mataqaana in badan akhyaarta ku xidhan mataqaana daraasaadka Soomaalida ee ka warhaysay ahaana buug PDF mataqaana mararka qaar lagu helo tayadiisuna tayada PDF kaasi ay aad u liidatay. waxa uu soo galay sheekona dhex maraysay aniga iyo Cabdiladiif Ismaaciil oo ku la xidhiidhay dib u nooleynta dhaxalkii mataqaana Soomaaliga lagu qoray burburka ka horreeyay. marka sheekadaasi baa keensatay inuu buuggan uu noqon karo tallaabada ugu horeysa ama buugga ugu horeeya maadaama koobnidiisa darteed lagu furfuri karo in dib loo soo saaro ama dib loo daabaco qoraallo iyo hal abuur iyo sheekooyin iyo cilmi baarisyo iyo bugaag noocaasa oo hore loo daabacay hal mar ama 2 jeer deetana suuqa ka baxay ka dhamaaday. bugaagtaas oo haddii qorayaashoodii la helo ama maxaan ku rahdaa nuquladoodii la helo ay wacnaan lahayd in dadka dib loola wadaago si fiicanna mataqaana ay u naaxin lahaa ama uga qayb qaadan lahaa kobaca wacyiga. markii aan isla garanay ahmiyadda buuggaasi uu leeyahay waqti ayay qaadatay in la go'aansado in buuggan dib loo soo saaro. shirkaddu markay go'aansatay waxa farxadii ahayd in aniga mar labaad igu soo celiso oo warkaadaa keenay shaqadeedana qabo ayay ahayd. dabcan waqti dheer buu soo maray hawshana waan ka sheekeyn doonaa aan la soo marnay sidaas ayuu buuggani dib ugu dhashay. marka sheekooyinka maqaaxiya lama dhayarsado waxaasoo kale ka soo baxa. buugga qodobka labaad ee ka odhanaya waxa weeye qoraaga buugga oo Jaale Maxamuud Cabdi Dhunkaal Allah ha naxariisto. dabcan maxaan ku dhahay qof walba duruuftiisa ayaa qaabaysa laakiin sidaan mar hore sheegay oo meel kale ka sheegay Maxamuud Cabdi Dhunkaal wuxuu noqon karaa ama astaan u yahay qof mataqaana
noloshiisa gebigeedu daraamo tahay ama yacni qof noloshiisu isbedbedel badan tahay ku dhac leh safar badan kalsooni badan ka muuqatay isagoo yar markaa si kooban haddii aan idinkaga warramo maxamed cabdi nukaal waxa uu ku dhashay bilowgii qarnigii hore deegaano deris la-ah maxaan ku dhahaa degmada cergaabo dhalinyarnimadiisii halkaas ku qaatay laakiin isagoo wiil yara yani waxyaabaha significanta noloshiisa yani lasoo taaban karo ee la yaab kale isagoo wiil yara ayuu tacabiray oo uu mataqaana ingiriiska galay isagoon dugsi marin waxbarasho formala aan marin ayuu ingiriiska galay halkaas ayuu wax isku baray oo isagu wax isku baray sidoo kalena waxa uu la falgalay markiiba si degdega waxaad garan kartaa qof ka yimid deegaankaasi xilliyadaasi oo Soomaaliya oo ajnabi ka ingiriiska si degdega waxa uu la falgalay hirarkii fikir ee ka jira xilliga ingiriiska iyo ururadii siyaasadeed wuxuu qayb ka noqday waxyaabaha la xusi kara ka mid ah garabka dhalinyarta ama garabka ardayda ee ururka Labour Party ingiriiska mar dambe waxa uu waxbarasho ka helay dalka Soviyetka oo waaga cusbaa jaamacadda Moscow imika la yiraahdo waaga magac kale lahayd ayuu tacliin ku qaatay kontimeeyadii iyo bilowgii maxaan ku raahdaa lixdimeeyada xorriyaddii kadib ayuu soo noqday maxamed wuxuu ka mid ahaa dadyoga saameynta ku lahaa saxaafadda ra'yiga siyaasiga wax ka qora sidoo kalena doodo siyaasadeed la gala xukuumadii xilligaa jiray waxa uu la jaan qaaday afgambigii kadib kacaankiiba ayuu la jaan qaaday laba xafiis oo muhiim ah oo ka dambe uu ugu ahmiyad badnaa lana odhan jiray xafiiska ideolojiyadda ayuu ka shaqeeyey qof wuxuu ahaa afkaarta u janjeera mug weynna u leh waxaa kaloo uu ahaa shakhsiyad maxaan ku dhahdaa astaan u ah ama noqon karta muunad u noqon karta dhaqdhaqaaqyada fikir ee waaga soomaalida ka dhex jiray oo aan ku koobnayn kuwa aan hadda aynu la falgalno waxa uu isaga iyo rag badan oo kale dhaqdhaqaaqyo dhowr magac oo kala duwan qaatay axsaab kala duwanna aasaasay sidoo kalena saameyn kala duwan bulshada ku yeeshay ay ka mid ahaayeen oo aan iskugu soo ururin karno dhaqdhaqaaqa qaybta ka ahaa bidixdii Soomaaliyeed bidixda ama laftiiska Soomaalida ayuu ka ahaa xubin muhiima oo ka ahaa xagga fikirka inkastoo aan position siyaasi qaban markuu xisbiga ku jirayna xafiiska ideolojiyadda oo afkaarta la xiriira ayuu ka shaqeyn jiray marka nolosha sida isku roga badan leh kuma dhamaanin deganaanshaha xisbiga waxa ka mid ahaa dadyowgii hirkii taliska iyo markii ay isku dhaceen yasaariyiinta ama bidixda isku dhaceen dadyowgii kacaanka isku dhaceen ka mid ahaa sideetameeyadii buu haddana ka huleelay oo ka baxay dalka waxa uu qayb ka ahaa doodihii lagu aasaasay laba xisbi oo bidix ahaa oo kasoo unkamay Yamanta Koonfureed oo la kala odhan jiray xisbi shaqiila iyo xisbiga shuyuuciga Soomaaliyeed oo iyaguna sheeko dheer leh gabagabadii noloshiisa maxamuud waxa uu ku dambeeyay dalka ingiriiska oo macallin ka noqday marka noloshiisa ka soo bilaabantay kuranimadii maxaan ku dhahdaa baadiyaha Ceergaabo waxay ku dambeysay inuu ku gaboobo oo ugu dambeynna Allah u naxariisto ku geeriyoodo dalka ingiriiska shakhsiyadda noocaas ayaa buugani lahayd soo saartay maxaan ku dhahaa inay fikradiisa lahaato maxamuud haddaad ila garateen yani waxaad sawiran kartaan jawiga markaa uu buugani kusoo baxay marka aan taariikhdiisa idinka sheekeeyo shakhsiyad xamaasad qabta fikradna aaminsan fikraddaana xamaasad dheeriya u qabta oo aad ugu qanacsan buugani intaan ognahay macluumaadku way iska daba yimaadaan intaan ognahay waa buuggii ugu horreeyay markii farta la hirgeliyey Soomaali loo soo turjumo turjumaadiisu ma ahayn turjumaad toosa oo maxaan ku dhahdaa buug kale la raacay alfilaaya sidoo dhameystirnaa loo soo turjumay laakiin jaalluhu wuxuu door biday laba buug oo magacooda ku xusan buug afruusha inuu nuxurkooda Soomaali ku qoro dhinac waa qoraal asala laakiin dhinacna waa turjumaad oo ma aha kama baxsana labadii buug sidoo kalena soo koobis iyo dib u qoris weeye waxaan ka oran karaa buugga waxa ku qoran gudaheedii ugu tageedii ka sheekeyn maayo tafaasiisha alfilaaya intii akhrisayna waa ka warhaysaa laakiin laba shay baan ka oranayaa marka hore buugga hordhac buugta hordhac waxa ay astaan u leeyihiin ama muunad u leeyihiin in mowduuca ay soo koobaan soo yareeyaan luqad fududna ay ku gudbiyaan af fududna ay ku gudbiyaan buuggan waxaan oran karnaa wuxuu hordhac u yahay falsafadda ama aqoon ahaan iyo ideolojiyad ahaanba qodobka labaad ee ka oran karaa waxa weeye buuggani waxa uu ka mid yahay nooca buugaagta ama nooca qoraal ee la yiraahdo taariikheynta afkaarta fikrad mucaayana waa halka ku dhalatay cid baa qabtay group bay noqotay waqti bay noolayd
jiilba jiil buu dhiibay jiil kasta markay fikraddaasi ka gudubto waxa ay martaa duruufo nolosha isbedelaysa bulshada isbedelaysa technology-ga isbedelaya nidaamka siyaasiga isbedelaya waxyaabaha isbedelaya fikradda imtixaan bay gelinayaan mar walba waaqica ay ku dhalatay waaqic ka duwan markay tagto ama nolosha halkii joogtaa isku bedesho ama deegaano kale tagtay isbedelo ayaa ku dhacaya afkaartuna isbedelada way la falgalaan marka qofkii ugu horeeyay ama jiilkii ugu horeeyay fikradda dhaliyay jiilka ka dhaxla ee ka dambeeya waxa laga yaabaa inuu horumariyo wax ka bedelo dib u curiyo qayb kale farac ka sameeyo isbedeladaas afkaarta ku dhacaya waxa loogu taariikheeyaa ama lagu darsaa cilmiga maxaan ku dhahaa taariikhda afkaarta ayaa lagu darsaa nooc ka mida yani asalka buuguna waa noocaas waxaa ka soo bilaabayaa taariikhda falsafadda bilowgii Greek intaanu falsafadda Greek bilaabmin waxaanu soo gaarsiinayaa Lenin uu soo gaarsiinayaa oo ah xilliga ahaa calankii uu siday markasiyadda Leninismka ah faraca markasiyadda ah uu siday calanka dabcan kama maqna buugga inxiyaasaadka qoraaga taasina wax dabiici ah oo qoraa kastaaba qofku iskama dhex bixi karo waxa badan eedda ah qofkaasi wuxuugii buu qoray dabcan haddii taariikh la qorayo haddii af la qorayo haddii dhaqan la qorayo laakiin dabcan maxaan ku dhahaa maroorinta xaqiiqadu waa mushkilad qofku markuu xooga qorayo markaa yani luqadeena adeegsano in xaqiiqo jirta marooriyaa waa mushkilad laakiin waxa aan marnaba laga dhammaanin qoraa kastaaba waa cid qoraa kastaaba waa shakhsiyad afkaar buu aaminsan yahay taariikh buu ka soo jeedaa hayb buu leeyahay haybtaasi mid fikra ha ahaato mid bulsho ha ahaato hayb qowmiya ha ahaato isir uu leeyahay hayb maxaan ku dhahaa dabaqadeed ha ahaato oo nolosha halka uu kaga jiro kamana dhex bixi karo qofku haybtiisaasi haybihiisa kala duwan faraha badan leh qof hal hayb leh ma jira laakiin haybihiisa faraha badan leh kama dhex bixi karo waxa kale oo ka dhex bixi karin duruufta ku nool yahay wax ku bartay ku dhashay ku koray marka mar walba qoraaga iyo qoraalkiisu si uunba iskugu ekaani meel uunbay maxaan ku rahdaa iska shabihi ama meel uun ka qaloocsanaani taasi cilad ma laha cilada qura ee loo jeedin kara qoraaga waxa weeye inuu xaqiiqada horta ka marooriyay oo waxaan qaadi karin uu geliyay marka ama uu ixtiraacay ama uu alifay ama uu been abuurtay ama uu wax ka kala tagay si uu meel wax ugu arooriyo marka labada eray buugga ayaan ka oranayaa haddaan hore ugu socdo su'aal badan waxay kaga soo noqotay buugga waa la soo turjumo oo la soo minguriyay garanay laakiin buugga waa la hubiyay iyo waa la faahfaahiyay ama sidii markii ugu horeysay ku soo baxay waa la xaqiijiyay iyo waa la sharaxay maxay tahay halkan aan rabaa inaan ku soo koobo shaqadan waxay tahay buugtu oo noole buugtu waa noole jiil bay ku soo baxaan ama xaalad bay ku soo baxaan luqadda isbedesho marka ay soo baxaan waxa isbedela qab fikirka waxa isbedela afkaarta ay ku dhisan tahay waxa isbedela maadada ay ka samaysan tahay u duugowda wala iloobaa maqtuudaad ka gashaa imka xarunta dhaqanka maqtuudaha hore ayaa yaala oo maxaan ku dhahaa buug asala marka dib u nooleynta buugta ayaa xaqiijin la yiraahdaa ama markii dambe la isla garteen Soomaali lagu qoro hubin buugii la xaqiijiyo marka waxyaabaha la xaqiijin waxa ka mid ah buugii naskiisii la xaqiijiyo qoraalkiisa asalkii qoraallo kala duwan dib buug ka soo arooraan la isku geeyo la isbarbar dhigo la isku eego qofka iyo afkaartiisa lagu eego wixii qalad ku biiray laga hubiyo xaqiijintaasi ay noqonaysaa labo sharaxaaduna waxa weeye in umaleyn ma sharaxaadna si sharxi kara laakiin in buuggii wixii ma taqaanaa ku jiray imika dadka markii hore waxa loo daabacay jamhuur baa loo daabacay jamhuurkaasi qaab buu lahaa qaabkaasi prediction baa la sameeyay waxa la qiyaasi karo waxay fahmi karaan waxaan fahmi karin waxa ay qaadan karaan waxaan qaadan karin eriyada xilliga isticmaalka ku wareegay baa jira jiil dama marka loo daabacayo waa jamhuur cusub marka waa in dib haddana loo xisaabiyo jiilkan muxuu fahmi karaa maxaa ku cuslaan karaa eriyada u baahan sharax mafaahiim mucayana yani fahano gooniya oo laga yaabo in imika caadi yihiin baa jiilkeen naga dambeeya maxay ahaayeen imanaysa marka in dib loo faahfaahiyo waxaasi waxyaabo contextka la xiriira oo markaasi aan loo baahnayn la sharxo laakiin dib in wax laga sheego u baahan baa jira marka hore hubintaasaan ku sameynay marka labaad waan garaacnay markii hore teeb buu ku qornaa dib baan u garaacnay garaaciddaas waxaa keentay inuu ereyada qaar oo markaa fartu yani ictimaadkeygu markuu hadduu cusbaa toddobaatameeyadii ereyada qaarkood iminka sibaa ayaa noqotay muctamadin si laysla yaqaano in loo qoro mararka qaar ay ama israacaan ama kala hadhaan waxyaaba saasa kuwaasoo dhan waanu ka hagaajinay waxaa kale oo aan samaynay ereyo waxaa jira waagaa af ingiriisku qoraagu isticmaalay oo qaar badan oo ka mid a iminka erey bixinteedu Soomaali ahaan wax rasmi ah noqotay la isla yaqaano marka kuwii waan ka saarnay waxaan gelinay kuwa maanta la isla yaqaano kuwa waxa jira
af ingiriisi oo bixina ama mafaahiima oo aanan u helin ilaa imika ama aan maxaan ku rahdaa isla garan ama aan muctamad noqon maxaan ku rahdaa bixin loo isticmaalo kuwa markaa waxaan sameynay halkii ay eray ingiriis ka ahaayeen maadaama buug Soomaaliya yahay in la Soomaaliyo si loo Soomaaliyo dhawqeyga Soomaali lagu qoro marka adoo af Soomaali akhriyay inaad af ingiriis ka dhex akhrido waa gurgur weey waxa sameynay kuwana waan Soomaaliyeennay marka farsamadaasi markaan ka soo dhamaanay ayay bilaabantay markaa in sharaxaadana aan gelino dibna tafaftir loogu celiyo dabadeedna aan u soo baxo marka farsamadaas ay buug soo maray marka dhowr qof oo kala duwan oo ka shaqeeyay oo maxaan ku radaa ay ugu horeyso walaasheen Fartuun Sakhawe maxaan ku radaa Budari Warsame Cabdiraxmaan Yuusuf Mustafa Saciid iyo maxaan ku radaa Cabdiladiif Keelle dadkaas oo shaqooyinka qaar kamid ah involved ku ahaana mahad gooniya ayay iga mutaan qodobka afraad ay qodobka shanaad afkaarta halkaasaan ayaan kaga tagayaa qodobka hal mas'ala ay igu dhimantaana ka bixin sharaxaadda markaan ka tagnay waxaan u sameynay laba hordhac oo kala duwan hordhac buugga la xiriira marka u sii gogol xaadaya iyo hordhac qoraaga la xiriira marka hordhaca qoraaga la xiriira oo taariikhdiisa kooban intaan u helnay marjac iyo source u helnay aan ku sameynay ayaa sababna ku jira marka hordhacaasi waxaan rabaa labaad qoraaga la xiriira inaan uga mahad celiyo nin ay soo wada shaqeeyeen qoraaga saaxiibna ahaayeen oo source-ka koobaad noo ahaa ambassador Aadan Muuse oo Soomaaliland u fadhiyo jiray dalka Ingiriiska ayaan isagana uga mahad celinaa qodobka ugu dambeeya si aan u soo koobo hadalkayga waxa weeye hawsha inta leeg ee aan soo sharaxnay buugga wuxuu ka kooban yahay qoraaga dabagalkaasi dib u xaqiijinta sharaxaadda sheekada dheer maxayna geliyay aniga shakhsiyan waxa ay tahay saan meel kale hore uga sheegay hadda qaarkiin hore u maqleen yaan hadalkiiba lagu celcelinayaa inuu noqonay aniga shakhsiyan waxa ay tahay dhowr mushkiladood baa xaaladdeena dhaqan ama xaaladdeena thaqaafiga ka jirta mushkiladu waxa weeye waxaanu liqnay framework hore colonialism ku dajiyay isticmaar ku dajiyay oo ah noloshu waxay bilaabantay maalintu ninka cad Afrika yimid ama dunida saddexaad taas markaa waxay bilaabaysaa sheekadeena oo fiirso arrin kasta hadii laga hadlayo inagu de waxaan meena lahaan jirin dawladnimo la inoo keeno waynu galnay su'aashu waxa weeye ka hor dawladnimada si aanu nooleen nidaamka siyaasiga soo ahaa inagu waxba dee dhismi iyo cimaarada min aan aqoonay ribaadiin isku ahay masalada ah inoo markii ninka cad inoo yimid baynu nolosha bilownay oo fikrad aad u shaayaca marka qaar soornaysa qofku wuxuu ka fikirayaa taqriiban inuu dadkani maalintu ninka cad yimid wixii ka soo daateen noloshooda sida ahayd siyaasadahaas oo noolaan dhaqankooda soo suugaantooda sida ahayd technology-gooda soo ahaa maxay wax ku noolaan waxay ku qabsan jireen technology wax lagu qabsado maxaan ku raahdaa cilaaqaadkooda xiriirada iyaga ka dhaxeeya dad iyaga kale ka dhaxeeya sida ahaa aqoontoodu sida ahayd maxay yaqaaneen maxay rumayntoodu sida ahayd marka aniga shakhsiyan fikradda koowaad oo mushkilad igu haysay ayaa waxa igu biirtay fikrad labaad oo ah in dadka imika cilmi baarista sameeya dadka imika wax qora jiilka cusub iyo jiilal waaweyn oo naga horeeyay qaarkood ay u dhaqmaan sidii imika iyagu seeska dhigayaan inaan waxba ka horeyn Soomaaliga horteed wax laga qorin cilmi baarista horteed wax laga qorin marka de wixii baan jirin oo qornay qofan ka warhaynba mesela fiilka ka hadlayo misalka arrimaha aad ugu soo noqnoqda fikradaas waxa kamid ah haybta iyo identity-ga iyo waxyaabahaasi qofka imika daraasad sameynaya wuxuu dhaqmayaa si aan hortii arrinka wax laga qorin waxyaaba ugu badan ee dadka Soomaalida wax darsa iyo Soomaalida dadka darsaaba ay ku daaleen masalada haybta ugu horeysa marka labada fikradood oo is haysta shaqo noocan waxay ku tahay aniga agteeda laf dhabar jibin bay ku tahay sababtoo ah waxa dib u nooleynaynaa yani fikradda aan ka fikiraya waxa weeye dib u nooleyno dib ugu noqono intuu doono quality gu ahaado fikradda saa doonto u aaminsano ama ka soo horjeed ama ku qanacsano laakiin dib u nooleyno jiilashii hore waxay soo saareen ma nihiin dad mataqaana faqri dadyoga qaarkood haddii layna barbar dhigo waxba ma hayno dadyoga qaarkood haddii layna barbar dhigana qani baynu nahay dhaqan ahaan marka xaaladdeena inagoo qiimeynayna inaynu jiilkani u dhaqmin sidii uu isagu nolosha bilaabayo aqoonta bilaabayo fikirka bilaabayo caqliga bilaabayo garaadka bilaabayo qoraalka bilaabayo ibdaaca ama hal-abuurka bilaabayo marka buuggan iyo boqolaal buuga la mida oo sugaanta oo sheekafaneeda ah oo maxaan ku rahdaa curiska ah oo maxaan ku afkaarta ah oo tasawufka ah oo fiqiga ah oo maxaan ku rahdaa ii sheeg noocyada kala duwan aqoonta in dib loo nooleeyaa aniga waxay ii taagan tahay in afkaartaasi aynu hoosta gashanay deetana aynu isku jaxaabinay aan kaga hortegi karno tusaale noolna u noqon karto maxaan ku rahdaa in nolol aynu lahayn gumaystaha horteed iyo dabadii iyo imikaba marna mayna farabanin noloshu marba sida u taallaa fikradda labaad ee aan
kusoo xidhayo hadalkayga sidoo kalena aan isleeyahay shaqooyinka noocana iyo shaqadaniba qayb bay ka tahay anigana ii ahayd maxaan ku dhahdaa waxay hagayay waxa weeye afku waa xayndaab aqoonta isaga xayndaaba mar hadduu aqoonta xayndaabo waxa gudihiisa ku jira ay dadka afka yaqaanaa ama afka ku koray ama afka dhaqankooga ama afkooga uu yahay ay yaqaanaan sababtaas loo dhaaf afku waa dhaqan waxay dadkaasi yaqaaniin ba xambaarsan ama suugaana ku xambaarsanaado ama mahmaha ku xambaarsanaado ama taariikhda ku xambaarsanaado ama ogaal gudaha ku xambaarsanaado aqoonta dadkaasi iyo wacyigooga iyo ogaalkooga iyo thaqaafadooda iyo maxaan ku dhahay fikirkoogana ma horumari karo isma bedeli karo ma kobci karo ma ballaaran karo haddii aan afka gudihiisa lagu shaqayn marka shaqo kasta oo Soomaaliga lagu dhex qabto noocay doonta ha ahaato waa kobac loo geysanayo bulshada si doonta quality-ga muxtawiga ha masalada labaadna waxa weeye kobacaasi ma dhacayo haddii aanu rasaysan dhicin haddaan wax la isdul dhigdhigin yani ma dhici karto inaan jiil yimaado ama laba jiil yimaado aan wax walba dhammaystiraan marka bilow qolo walba qolo ku dul dhisto naqdiso ka dabageyso ka faa'iido ka dabageyso oo u dhismo waxaan ku dhahdaa jaranjarada aqoonta iyo wacyiga guud u dhismo afkaarta noocaas ah ayaa ahayd afkaarta lagu ilhaaminaysay in shaqo noocan oo kala qabano waad ku dheereeyay waan filayaa intaas ku soo gabagabeynaya wixii su'aalaha ka yimaada miiska iyo idinka iyo faallo iyo wax walba waan soo dhaweynaya aad baan u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh